tuulada Buulacaano waxa ay ka mid tahay tuulooyinka hoos yimaada degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana xilligan ka dilaacay cudurka shuban biyoodka kaasi oo soo ritay 17 ka mid ah dadka deegaanka oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn waxaana sidoo kale cudurkaasi ku naf waayay ilaa 7 qof oo waayay waxyaabihii lagu dabiibi lahaa ama looga hortagi lahaa marka uu ku dhaco qofkaasi cudurka shuban biyoodka isbitaalada ku yaala magaalada Jowhar ayaa looga qaaday karantiin daawo ah waxana waa ay ku taraweysay dadka degan tuulada Buulacaano waxaana hadda ay yihiin kuwa u baahan in gargaar dhinaca daawada la gaaro dowlad goboleedka Hirshabeelle oo aan inta badan tuulooyinka eegin iyo waliba hay'adaha gargaarka ayay ka codsadeen inay gargaar degdeg la gaaraan dadka tuuladaasi waxaana Africa Cable TV xarunteeda Jowhar soo booqday mid ka mid ah dadka deegaanka waxaana uu Africa Cable u sheegay in tirada dhimashada ay hadda 7 tahay 17 kalena ay jiifaan tuulada Buulacaano waa kan isaga oo qeexaya arrimahaasi arrimo kale bismillaahir rahmaanir rahiim anoo magaceeyo Ali Umar Maxaad ala timacade kana mid ah odayaasha deegaanka tuulada Buulacaasi ama Buulacaano maanta studio STFM waxaan u soo gudbin cabasho ah inay warbixiyaan dhibaato ka jirta deegaanka Buulacaano oo ah shuban biyood ka dilaacay maarta deegaankaas oo aan markii ugu horeysay oo maarta shuban biyood ka dilaacay oo bishii Maarso xilliga jilaalka ka dilaacay dad badan ay ku dhinteen qaarna maarta Ilaahay ku samad bixi hadana cudurkii dib ay ugu soo laabtay ilaa hadda tirada ilaa shalay iyo maanta dad ku dhimatay waa 7 ruux 15 ruuxna waa ku ildaryihiin hase ahaatee ma haystaan hadana wax daawooyin oo RS ama maxadahan metrazole iyo faleebo waxa haystaan malaha kartoona magaalada Jowhar laga qaaday kartoonkana waa ku filnaa way marka qaarkood waxa dhicaysa in maarata fuuq baxay u dhintaan hadana cudurkii waa si faafay malaha meel oo karantiil oo dadka lagu karantiilo marka saas marka idaacada STFM oo soo baahayeen oo soo gudbinay si maarata dadka maarata si umada ama ayada waxna maarata waxnu qaadameen ilaa hadda wax maamul ka socdo oo deegaankaas yimid oo ama dhibaatada maagta soo booqday ma jiraan dadkii oo dadka baadiye oo dhibaato badan oo maarata xoolo baahida la soo maray hadana waxa roobku u sii yahay marka qofka ma awoodi karo inuu maarata oo daawooyinka ORS ama cusbadii iyo maarata ORS ama kaniimada soolka inuu gudmo awoodi karo waxa adama wax maamul ama wax ganacsatay ama wax umad waa ilaa hadda yimid malaha xabadkii oo maarata deegaanka leen waa dhamaadeen cudurkan waa si taraa mugalsan ilaa hadda deegaanka Buulacaasi waxa goob caafimaad uu ku yaal malaha waxa uu dhow maxadaan gulley oo idan naftiga oo wax yar soo jira laakiin idan naftiga ma haysto wax oo maarata oo baahida deegaanka Buulacaano ka fikiro sabab RS dan ama waxay cusbada ah maarata oo RS iyo faleebada wax yaal male marka joorna soo aadno aan ka joor ka tumo aan ka gadno dadkii deegaanka dan oo isla markii aan la noqono qofka intee maarata faleebada la geersin oo iska dhimana cunuga ama qofka weynaa marka taas ah jirta waxa oo caafimaad ku furmala xiriir ma la sameeyay marka maamulka jiray Hirshabeelle waa la soo geersiyay ilaa hadan waxaan u yimid oo hadan gargaar ka socdo ama hay'adaha noqdaan ama ganacsatada noqdaan ama ummadda Soomaaliyeed noqdaan waxa deegaankaas oo yimid hadda malaha cudurkan waa si zaid ah ma sha Allah maxaad ugu baaqaysaa marka aad ka codsanaysaa bulshooyinka muslimiinta iyo dawladda maamulka waxaan ka codsanaynaa inaad nalaga soo geersiyo faleebooyin iyo waxa kale ORS iyo metrazolki hadana waxaan sii baahanahay teendooyin oo dadkii cudurka soo ritay ay soo booqanayeen dad oo qaraabo ama dadka isku tuulada cudurkan si dhaqso u sii fidaa meel lagu karantiil oo maaragta oo teendo lagu xiro daawooyinkooda dhaqaatiirna waa joogan laakiin daawo ma haystaan marka intaas aan ka codsanayaan macnaha hay'adaha iyo maamulka ummadda Soomaaliyeed mid ma kasii joogan dowlad goboleedka Hirshabeelle oo madaxweynaha ka yahay Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa waxa ay indhaha ka daboolatay dhibaatooyinka baasan ee haysta shacabkooda waxaadna moodaa inay dalxiisyo ku joogaan dalalka caalamka iyadoo maatadii ay mas'uulka ka ahaayeen ay ku dhibaatoonayaan deegaanada ay ka arimayaan shalay ayay ahayd markii Africa Cable TV uu booqday isbitaalka Intersos oo kamid ah isbitaalada ku yaala magaalada Jowhar waxaana isbitaalkaasi uu sheegay Africa Cable TV inuu san amar u qabin inuu siiyo warbixin ku aadan dadka cudurka shuban biyoodka uu soo ritay ee ka imaanaya tuulooyinka hoos yimaada degmada Jowhar waxaana isbitaalka xilligaasi jiifay
ku dhowaad 40 qof oo la ildarnaa cudurka shuban biyoodka.